golaha adeega garsoorka qaranka uu hogaaminayo xeer ilaaliyaha qaranka Cabdulqaadir Maxamed Muuse guddiga qareennada iyo waliba dhammaan sharciyaqaanada ayaa kulay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho waxa ay si kor ugu cambaarayeen xeerka garsoorka dalka ee dhawaan ay meel mariyeen xubnaha golaha shacabka xeer ilaaliyaha qaranka Cabdulqaadir Maxamed Muuse oo saxaafadda la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha ay ku dhaliilayaan xeerka dhawaan ay meel mariyeen xubnaha baarlamaanka isagoona sheegay in ay isaga mas'uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta danaha dalka uusan ogolaan doonin wax ka hor imaanaya dastuurka dalka waxna u dhimaya jiritaanka ummadda Soomaaliyeed anigoo ah xeer ilaaliyihii guud ee qaranka mas'uulna ka ah ilaalinta shuruucda dalka ilaalinta ku dhaqanka shuruucda dalka iyo shareecada islaamka sharci kasta oo ka soo baxa hay'adda sharci dejinta oo ah golaha shacabka tadbiiq cidda ku samaynayso oo dabaqayso oo in lagu dhaqmay sharcigaasi iyo in sharcigaasi uusan meel marin waxa mas'uuliyad ay ka saaran tahay xafiiska xeeraarinta guud iyo maxkamadaha markaasi dalka ka jira waxa aan la soconaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka in wasaaraddu ay gudbisay hindise sharciyeed markaasi lagu dhisay golihii adeega garsoorka anigu waxay mas'uuliyad iga saaran tahay sharci kasta oo golaha shacabka la soo marsiiyo ee la ansixiyo in aan meel mariyo waxaan xaq u leeyahay sharcigaasi ee golaha shacabka ay meel mariyeen ma yahay mid taxliil u ah xal u ah ummadda markaasi waddanka ummaddan hadda ka jirta ee Soomaaliya la yiraahdo sharcigaasi baarlamaanka uu meel mariyay ma yahay mid xal u ah ma yahay mid waafaqsan laftirkiisa baarlamaanku ma laha awood mutlaq ah oo aan waxa uu rabo u samayn karo baarlamaanku waxa xakameynaya sharciga wuxuuna ku xakamaysan yahay dastuurka qabyada ah ee hadda jira golaha adeega garsoorka oo u dhigma golihii wasiirada ayaa waxa awood u yeeshay in uu soo propose gareeyo cidii xubin ka noqon lahayd waxa soo propose gareynayo wasiirka cadaaladda iyo ooqaafta oo isaga xubin ka ah golaha wasiirada ayaa soo propose gareynayo waxay ka hor imaanaysaa qodobka 106 oo ah madax banaanida garsoorka wasiirka garsoorka iyo ooqaafta wuxuu ka mid yahay golaha fulinta haddana waxaa meesha ku cad in isaga uu soo samayn karo sidaas darteed sharcigan baarlamaanka uu ansixiyey wuxuu khilaafsan yahay dastuurkii laftigiisu khilaafsan yahay marka sidee lagu ogolaan karaa dhinaca kale Cabdulqaadir Maxamed Muuse xeer ilaaliyaha dalka ayaa cadeeyay in dowlad goboleedyada hadda ka jira dalka kaliya uu dastuurka waafaqsan yahay dowladda Puntland sharci kasta oo ka hor imaanaya dastuurka ama shareecada islaamka wuxuu qorayaa dastuurka inuu yahay waxba kama jiraan sharcigan oo ah sharci lambar 3 soona baxay 12 bishii 6 1962 ee baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay ayuu ka soo horjeedaa isla sharcigan laftiisa hadda waxaa la gudbiyay oo baarlamaanka uu ansixiyay maxkamad la yiraahdo maxkamadda anshax marinta waxay khilaafsan tahay dastuur dowlad goboleed oo sharci ah oo nidaam iyo qaab sharci ku dhisan waxa ku jirta Puntland hadalka ka soo yaray xeer ilaaliyaha qaranka ayaa imaanaya maalmo oo kadib markii baarlamaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ansixiyeen xeerka garsoorka dalka oo uu horgeeyay wasiirka dastuurka iyo federaalka Faarax Cabdulqaadir waxa ayna guddigani sheegeen in arrintani oo qoraal ah ay baarlamaanka horgeyn doonaan Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Puntland TV Muqdisho.